guddida qabanqaabada xuska 18 May ee gobolka Awdal waxa ay maanta kulan la yeesheen isuduwayaasha laamaha dawladda ee gobolka Awdal waxaana uu kulankani ahaa mid lagaga wada hadlayay sidii laamaha dawladdu ay ga muuqan lahaayeen xuska maalinta 18 May xogayaha gobolka Awdal Asad Cabdi Jaamac oo shirkan gudoominayay ayaa waxa uu yiri message ugu weyn ee uu gudbinayo wasaaradda ama wakiilaan uga ahay anigoo ku hadlayo magacii gudoomiyaha gobolka in aan ka gaarsiiyo isuduwayaasha in maalinta 18 May in iskuduwa kasta oo soo bandhigo calaamadii wasaaradda calankii qaranka iyo dhammaan shaqaalihii maamulaya sidoo kale xogayaha dawladda hoose ee degmada Boorama Maxamed Cabdi Xaashi Xamari ayaa arrinta siyaadkeeyay in suul kasta oo heer gobol ama heer degmii in nabadgelyada la iska xilsaaray sidii xasiloolaanta iyo nabadgelyada sidii looga diyaargaroobi lahaa maayirka magaalada Boorama Salebaan Xasan Xaddi ayaa isaguna tilmaamay in gabi ahaanba xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada Boorama oo kaashanaya dadweynaha ku dhaqan magaalada Boorama ay si ballaaran uga muuqan doonaan maalinta 18 May waxaana uu fariin gaar ah u diray saxaafadda waxaana uu yiri qoliyaha media inta badan waxa khayr ah xanaf qali raadiyaan ee taana in loo yarfirsado balnimanka media wada madaxa badan inay halkan ka fiican xasanaad waxa lagu qorayaa inay xagga xasanaad oo yar badiyaan bahasha oo ay tahay laba inaan orday haddii aynaan ku qabanin waa kuwa sida fiican soo dabaaldegay inay ku qabtaan dhinaca kale mas'uuliyiinta gobolka Awdal kuwa degmada Boorama iyo guddida horumarinta wadooyinka gobolada Awdal iyo Salale Asarda ayaa maanta waxa ay tacso u direen Allah u naxariistay eheladii qaraabadii iyo badhasaabka gobolka Awdal oo walaalkii Caaqil Cali Axmed Maxamed uu ku geeriyooday magaalada Burco waxay marxuumka ee booga baryeen inuu jannadii Firdawsa ka waraabiyo eheladii iyo qaraabadii uu ka baxayna samriye iimaanka siiyo Cabdalla Cali Yusuf Hon Cable TV Boorama